marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan halkan kusoo dhaweeyo magaalada Dayaxa deegaanka Dayaxa gudoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaana ah musharaxa madaxweynaha xisbiga iyo waftiga ballaaran aanan tiradooda iyo magacyadooda koobi karin aan se filayo badankooda inaa wajiyadooda wada garanaysaan oo ka mid yihiin cali waran cadde cabdicasiis samaale wasiir cawil xasan gafaadhi wasiir qabyatire isagoo aan degmada suwaragi kusoo dhaweyn lahaa meesha isagoo degmada ya xuseen cabdiwas maan arkay iyo dhammaan mujaahid cali guri baan arkayay wasiirka madaxtooyada isagu wasiirka waa la lahweeyo wasiirkii madaxtooyada سلطان محمد حسن مرة وفتو قاعد ببلادي هاي مسو كوبي كرو وحنا هاي ركب ما في اللي يعني ضيحوا عصب تاي مانتا وحنا يكون سور دوادا ضيحوا دوسي عانا أو ركبا أو سومالان عان كا كسوب بحين نكيا عن هالكن صومر الوقوع ذكتين وين النقطة marka xiga dad badan baa laga yaabaa in ay la yaabaan maanta halkan goobtan aan joogo waxaan jecelahay marka soo dhaweynta aan ku aan soo dhaafo inaan ku xigsiiyo maxaan ku dhahdaa in maanta oo aynu joogno Dayaxo oo aniga deegaankii halkii laga doortay meeshii codka ugu badan aan ka helay deegaankii dugsigii anoo waftiga ku soo dhaweynay inaan halkan kaga dhawaaqo inaan ku biiray xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye aan muddo yar oo kooban aan fogeyn aan kala yar maqnayn xisbigayga oo wax ka asaasay aan gurigay ku jiray maantana farxad bay ii tahay inaan ku soo dhaweeyo gurigaygii markaan intaa ka imaado anigu daraad baan dalka soo galay shalayna Hargeysa ka soo baxay hadeerna sidaa igu aragtaan baan waftiga ku soo raacay labada arrimood ee aan runtii aan jecelahay inaan yara taabto waxa weeye mid waxa weeyaan waxaan maqlayaa aytan iyo yooyotan iyo aflagaado gudoomiyaha ama musharaxa xisbiga isagoo goob jooga ka soo yeedhaya waxaan leeyahay xisbiyadu waxay ku tartamayaan waa agenda waa ideas waa afkaar waa siyaasad maaha aytan iyo yooyotan iyo shakhsi wax laga sheego midna kuma jiro xeerka iyo nidaamka iyo maxaan ku dhahdaa dhaqanka tartanka iyo doorashooyinka mana fiicna wax naxli iyo colaad iyo xumaan dadka ku beeraya ama ku kicinaya in ay cidina ku campaign garayso xisbigan iyo xisbiga kala toona waxaan leeyahay afka hala dhowrsado anigu qofna ma tilmaamayo laakiin waan maqlayay wax fara badan waxa kaloo aan runtii aad uga xumaaday markii horena aan la yaabay
باق كسر بحي حزب وطني ومحكمة دستورية عينية أما دلعينية محكمة الدستورية معها هيئة سياسات معها وهيئة قرصور قوان كأي قادتين وقوان دستور كوافقسن والشرعية وهي أرنت لوجي معها أرن competence كذا أما هل كذا وأرن برلمان كا محكمة الدستورية هي هذه الشير دعوة الهرجي ودعوة كوسابسن مرن دستورية وحين حد يتشير لبضع الدناء كلا عد كلا يدولد دعوة كستا أو دستورية دناء دولة كا وليد محكمة الدستورية ما قاعد كرتو دعوة كده حيصل لبا كحوض أما لبا جروب أما لبا قف كده حيصل ما قاعد كرتو ودعوة دناء دولة هي دنانا عد دولة كعمل سوية هي لكن ضدكم رنسان الرمو يجا كده حيا أما برلمان كم رنسان الرمها حريات كيسة محكمة الدستورية مقاطع وحنقبا إن أي طرفي عن قاضي يدرستي إنه يهي دعوة الدستورية إن كلا دبنا أي قوام صح أي قاعدين لكن runtii dee rag badanoo aan wax ku tuunsanaa ama aqoon ku tuunsanaa way joogaan meesha waan la yaabay maalintii hore ay dacwadda u gudbiyeen waxaase kasii yaabay dhaleecaynta waxaase is yidhi malaha xisbigu wuxuu ka qancay doorashada anigu waanan ogahay xaalkiisa dabadeedna inuu hadhow ku murmo waayo maxkamaddu go'aanka kama dambaysta ta ku dhawaaqaysa weeyaan marka inuu muranka hadda sii bilaabo hadhowto uu keeni doono ayaan isleeyahay malaa waji qiil bay ku ballaysanayaan laakiin waxaan leeyahay institutionska aan siyaasiga ahayn iyaan la siyaasadaynin hala ixtiraamo intaa ayaan kaga baxayaa waxaan leeyahay gudoomiye iyo waftiga ballaaran ee la socda dhammaantiin si kaliya laba markii dib soo dhaweynayna waxaan ugu dambeyntii jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo wasiir ilhaan maxamed jaamac iyo cabdi iyo dadkii abaabulkan xoogan lahaa waayo abaabulkan anigu waxba kuma lahayn haddaan soo galay dad baa ka sii shaqeeyey aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana